wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay in wasaaradda biyaha ee Soomaaliland ay si rasmi ah u joojisay biyo-gelin cusub oo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay ka sameeyaan gudaha magaalada Burco. wasiirku waxa uu arrinkani ku sababeeyay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay tartan la galaan wakaaladda biyaha ee magaalada Burco. isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladiisii mid yar baan halka ka faa'iideysanayo sheekhiina way la joogay qolooyinka muxuu ahaa biyo-gelinta magaalada ka wada ay kamid yihiin Sheekh Aadan iyo Saleebaan iyo Balaasa inay halka ay imika joogaan inta go'aan laga gaaray sababtoo ah hadday socdaan iyaga wakaalad gooriyo dadna waa la isjiiri maan bariye maan bilaal bay noqon nin walba dan baad deegaynaysaa waxaan leeyahay wakaaladda way shaqaynaysaa waxaan filayaa biyahan ay haatan ku filan tahay inta aynu si kale u xalilayno wax halkaa aad joogtaan ha u soo dhaafin haddaad soo dhaaftaan badha saabku wuu maqlayaa badha saabku wuu maqlayaa maarayaha wakaaladda wuu maqlayaa isuduwuhu wuu maqlayaa taliska biliiskuna iyo wixii awoodaha gobolka ihiba inta aan joogin halkan ay daawan doontaa waxaan leeyahay halka ay joogaan ay soo dhaafin taasana markuu bixinaya hadii la yiraahdo sida ha ogsoonaan aad iyo aad loo mahadsantii Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan telefishinka Som News magaalada Burco.